muuqaalkan oo ka soo muuqanaya Maxamed Salah oo la cibaadeysanaya ciyaartoyda kooxda Liverpool oo ku cibaadeysanaysa macbad ayaa ka yaabiyay dhammaan dunida islaamka. Xiddigan Maxamed Salah ayaa ciyaartoyda ugu waaweyn ee islaamka ee ka ciyaarta qaaradda Yurub, isagoo tusaale u yahay boqolaal dhalinyaro oo islaam ah oo ku xiran barihiisa bulshada. Laakiin dhawaan la yaab ayaa yahay socdaalka kooxda Liverpool ay ku mareysay dalalka Aasiya, taa oo markii ay tagtay Japan oo ay ka soo muuqdeen markaasi ciyaartoyda kooxda Liverpool oo macbad ku cibaadaysanayo, kuwaasi la yaab ma lahayn maadaama ay yihiin xiddiga gaala ah. Laakiin Maxamed Salah ayaa ka soo dhex muuqday isagoo la hadlaya markaasi wadaadka joogay macbadkaasi. Arrintan ayaa la yaab ku noqotay dunida kubadda cagta. Maxamed Salah barihiisa bulshada malaayiinta dhalinyaro ee kaga xiran ee islaamka ah uma sheegin sababta uu ugu soo muuqday macbadka Buzi ee dalka Japan. si walba ay noqoto ummanaan taageerayaal ah ayaa kaga falceliyay baraha bulshada. Horay Salah waxaa loo arkayay isagoo u dabaaldegayo maalmaha Christmaska, laakiin markaan si cad ayaa ugu soo muuqday ciyaartoyda Liverpool oo ka soo dhex muuqanaysay macbadka Buzi ee dalka Japan. tanna waxay noqotay arrin kale oo la yaab leh iyo dood kale oo loo furayay dhanka Maxamed Salah marka ay timaado. Salah ayaa qayb ka ah ciyaartoyda ugu waaweyn ee ka ciyaarta horyaalka Ingiriiska, isagoo ah hogaamiyaha daayarada ee dalalka islaamka marka ay timaado. laakiin si walba ay noqoto doodan, Salah ilaa xilligaa kama hadlin taa oo horay loogu yaqaanay. markastoo uu u dabaaldegayo ciidaha Christmaska, doodaha ka yimaada baraha bulshada kama uusan soo jawaabi jirin ciyaaryahankan markay noqoto. tanna waxay noqon doontaa arrin aad ula yaab badan. warbaahinada carabta ayaa soo qaatay ciwaano Maxamed Salah ay ku tusaaleynayaan oo ay cibaan kaga dhigeen cibaadadii masjidka waxaa xigtay cibaadadii macbadka ee Japan oo kale. haddaba adiga maxay kula tahay?